قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. kitaabkii tawxiidkaanu ku jirnaa weli, waxaana noogu soo dambaysay oo aanu maraynay ku xadgudubka lagu xadgudbo qubuuraha, waxyaabo fara badan oo dhibaata inay markaa ka imaanayaan. waxaa noogu soo dambaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo yidhi sida ay nasaara ugu xadgudubtay ciise oo kale ha igu xadgudbina. ammaanta dhaadheer ama dheerdheer ee dhibka keeni karta ee ku xadgudubka ah ee qofka xadkiisa ka bixinaysana ha igu samaynina. waxaan ahay addoon alle ee waxaad i dhahdaan waa addoon allaah ama cabdullaahi iyo wa rasuuluhu. sidaa idhaha ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. oo waxaa la tilmaamayaa meesha qofku mar allaala marka xadkiisa la dhigo oo la geeyo arrintaa inaysan dhibaato ku sugnayn, qofkana aysan liidnaan ku ahayn. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi iyaakum, waxaan idinkala digayaa idinka iyo macnaha waxaan idinkaga gayaa oo aan u kala digayaa idinka iyo xadgudubka. iyaakum waalghuluwa, idinka iyo guluwiga waa xadgudubkan idinkala digayaa. fa inamaa ahlaka, waxa uu halaagay man kaana qablakum, dadkii adinka idinka horeeyey, alguluwu xadgudube. fa inamaa in kale maahane ahlaka, waxaa halaagay man kaana qablakum, dadkii adinka idinka horeeyey, alguluw, guluw ayaa markaa halaagayoo xadgudub bay ku halaagsameen. cibaadaan samaynaynaa bay dadka gobol ka mida yidhaahdeen, cibaadadii bay ku xadgudbeen, waxaysan aqoon bay sheegeen, sidaa darteed bay ku halaagsameen. idinka aad iyo aad isaga ilaaliya. waan idinkala digayaaye walimuslimin, muslim waxaa u sugnaa can ibni mascuudin ana rasuula allahi, rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi halaka almutanaticuuna. qaalahaa halaaan, 3 jeer ayuu rasuulku yidhi uu ku soo celceliyey. mutanatica waxaa la jeedaa waa dadka aad iyo aad isku adkeeya ee mutacamiqiinta ah, shayga isku kalifa. dadka noocaasaa markaa loola jeedaa. dadka mar allaala marka diinta lagu dhaqmahayo meel aan takliif iyo adeeg loogu talagelin bay xoojiyaan, way adkeeyaan. dadaa waxay ka gaartaa heer ay tilmaamaan oo ay dhahaan inay hilibka iska joojiyaan, inay qubsiga iyo waxyaabaha la midka ah, dharka quruxda badan ee la labisto in layska dhaafo, suufka iyo waxyaabaha la midka ah, ayagoo dhan ay noqdaan dad diinta isku adadkeeya, isku xoojiya. xataa gobol baa ka fogaada dumarka guurkooda. intaa suhdi baan ula jeednaa bay leeyihiin. marka saa darteed ma fiicna oo ma wanaagsana meel aysan diinta xoojinin oo aynan adkayn qofku inuu isku adkeeyo. mutanaticiinta ayaa markaa halaagsamay. halaka almutanaticuuna. weliba nebiga hal mar kuma kaaftoonine 3 jeer ayuu ku soo celceliyey. qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin, aniga ajir idinku weydiisan maayo, xaqan aan idin siinaya dheh baa la yidhi nebiga. mutakalifiintana ka mid miihi, isma kalifaaye
saa darteed baa waxaa habboon oo loo baahan yahay qofka muslimkaa mar walba inuu ahaado qof dhexdhexaad markaa ku socda. waa inuusan diinta isku tashdiidin, inuusan isku adkaynin. meelaha loogu talagalay adayga in xoog loo qabsadana uusan markaa khafiifinin. baabu maa jaa'a, wixii ku yimid ayuu baab u yahay oo min ataqliidi adkayn ah, in la xoojiyo mamnuucnimadeeda iyo inay shirki tahay fii man cabada allaha, qof allaala qofka ilaahay ku caabuda cinda qabri rajulin saalixin, rajul saalix ah, nin awliye ah, nin wanaagsan, nin ahlu khayr ah, qabrigiisa agtiisa qofka ilaahay ku caabuda. fa kayfa idaa cabadahu, say xaaladiisu noqonaysaa haddii uu ku caabudo. dad baa waxay aaminsan yihiin cibaadada qabriga agtiisa lagu sameeyo inay ka fadli badan tahay cibaadada masaajidada lagu sameeyo. xaaladda noocaasa dadku inay aad uga waantoobaan, iska ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay, waayo qabri iyo cibaado waa la kala fogeeyaa. waxaa baabka looga hadlayaa taqliid la adkeeyo. qofka ilaahay caabudaya, cidda uu caabudaya waa allah oo qof kale caabudi maayo. laakiin dhibku muxuu ka jiraa? wuxuu la qasdayaa cibaadadiisa nin awliye ah oo saalix ah qabrigiisa inuu ku ag caabudo allah. say noqonaysaa qofka noocaasa haddii uu cibaado la yimaado? fa kayfa idaa cabadahu, haddii uu alle ku caabudo qofka qabriga ninka saalixa agtiisa, say noqonaysaa cibaadadiisa? saa darteed waa inaan kala socnaa xaaladda noocaas ah. waa in mar walba qofku uu la qasdaa kulana dadaala beydka alle cibaadada. masaajidada waxaa camira rijaal laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar. taasi waxay keeni kartaa qofku inuu garto macaansado cibaadada mar allaala marka uu ku jiro beyd alleh, mar allaala marka maanta ima marar gobol ka mid ah la dhici jirtay ummaddu inay iska ag fadhiistaan, wax ku cunaan, wax ku cabaan, rabbi ku caabudaan, qiyaamuleyl ay ku tukadaan qubuuraha agtooda. fi saxiixa waxaa ku sugnaa, saxiixayna waa la yidhaahdaa can caaisha ana umma salama gabadha lagu magacaabo yaa dakarad waxay xustay oy shtay lirasuulillaahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam, kaniisad ra'athaa ay ku aragtay biardi alxabashati, dhulka xabashadee nasraaniyiinta ah ee uu ka soo islaamay najaashi iyo jamaaco la mid ah. waa markii jacfar ibni abi taalib iyo wixii micigiisa ahaa oo muslimiinta ay u hijroodeen dhulka hijradii koowaad. gabadha umu salama dadkii hijrooday ayay ka mid ahayd, ayada iyo ninkeeda abaasalaba. waxay rasuulka u sheegtay kiniisad ay dhulkaa xabasho ku soo aragtay, iyo wamaa wixii fiiha ku dhex sugnaa oo min asuwari masawiro ah, wixii suuradooyin ah ee musawiro ah ee ku dhex sugnaa kiniisadda ayay nebiga u sheegtay. faqaala, rasuulku wuxuu yidhi, ulaa'ika kuwaasi idaa maata haddii uu ku dhinto fiihim dhexdooda alrajulu asaalixu, rajul wanaagsan, aw alcabdu asaalix ama addoon wanaagsan, banow way dhisi jireen calaa qabrihi, qabrigiisay masjidan, masaajid ka samayn jireen. wasawaruu, kolkaasay ku suuradayn jireen fiihi, masjidkii gudihiisa, tilka suwara, masawarooyinka. ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi, waa khalqi alla khalqay kuwa ugu shar badan cinda allahi, alla agtiisa subxaana wa tacaala. ilaahay agtiisa kuwa rajulka saalixa ah ama addoonka hagaagsanee awliyanimada loo nisbaynayo, cibaado badnaanta, iimaanka iyo khayrka lagu tuhmayey in badan ee ku dhex dhintay, qabrigiisa masaajid ku dhex sameeyey, masawiro ku dhex sameeyey, meeshaa gudaheedaan rabbi ku caabudaynaa yidhi, ulaa'ika shiraaru lkhalqi, khalqiga kuwa ugu shar badan waaye cinda allaahi, ilaahay agtiisa. waayo fa haaulaa'i kuwani
jamacuu waxay kulansadeen bayna alfitnatayni laba fitno, fitnata alqubuuri wa fitnata altamaahiil. qubuurta fitnadeediina way la yimideen, tamaahiisha iyo sawirada weliba kuwa gacanta lagu sameeyey tamaahiisha ah fitnadeedana way la yimideen. waa labada waxyaabood ay dadku in badan ku baadiyoobaan, shirkiga ay ku galaan. ma sawiradu ma wanaagsana, wax badan baa si fiican ummaddu intay ka gaabsan karaan inay iska gaabsadaanay iska ilaaliyaan. wixii dani weyn aysan keenin, wixii muraad saasa aan laga lahayn, waa fiican yahay keliya inaan la dhihine layska wada daayo. gacanta ka lagu qoree tamaahiisha la yidhaahdo, waayo nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku yidhi qoomkiisa, maa haadihi atamaahiilu alatii antum lahaa caakifuun? waa maxay musawiradan aad dul fadhidiin oo aad dul fadhiisanaysaan habeen iyo maalin? maxay dhaheen, wajadnaa aabaa'ana, aabbayaalkeen baanu ka helnoo sidaan bay samayn jireen. idinka iyo aabbayaalkeenba baadi cad baad ku sugan tihiin buu yidhi. xaaladda waxay tilmaamaysaa waxa dhibaatada keena waa tamaahiisha, waa suurooyinka, waa musawirada, waa qubuuraha. sidaa darteed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u tilmaamay markay umu salama uga sheekaysay ee kiniisadda iyo waxyaabaha ay ku soo aragtay rajulka saalixa ah ama addoonka fiican ay haddii uu ku dhinto in qabrigiisay masaajida ku damayn jireen, ay ku dhex caabudi jireen ilaahay. waxay caabudayaan waa allah, laakiin qubuuraha dhexdooda fitani ka imaantaa. marka taas darteed ayay diintu diidaysaa, taasaa islaamku ka dagaalamaya, taasaa ummadda looga hor istaagayaa. waayo saan soo tilmaannay qubuuro iyo dad ku jira, rajaal iyo rag saalixiin ah oo saa loo buunbuuniyey ayuu ka yimid, kana dhashay shirki sidiisaba. walahumaa waa muslim iyo bukhaari canhaa caaisha xaggeeda ay anna caaishata waayee qaalad waxay tidhi, lammaa nusila birasuuliillaahi, rasuulkii ilaahay markii lagu soo degay, macnaha mar allaala markii rasuulka lagu soo dejiyey uu u yimid malaku mowdkii iyo malaa'igtii karaamada badneed ay ku soo degeen, tafiqa wuxuu guda galay yataraxu inuu saarayo khamiisatan go' oo lahu asaga u sugnaa calaa wajhi wejigiisa. wejigiisuu saa ugu tuuraya, waa ku daboolayaa. fa ida iqtama bihaa, markuu ku caburmo maradiina kashafahaa, waa uu ka qaadayay wejigiisa wuu ka faydayey sala allahu calayhi wasalam. faqaala wuxuu yidhi nebiga, wahwa kadalika, asagoo xaaladiisu ay sidaa tahay, lacana allaahu, ilaahay ha lacanado oo naxariista allah ka durjiyo alyahuud waannasaara, yahuud iyo nasaaro. yahuud iyo nasaara lacanada alla ha ku dhacdo, waayo ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim, nebiyadooda qubuurtoodiibay masaajida ka dhex sameeyeene. naclada ilaahay korkooda ha ahaata yahuudiyo nasaaro, layskama lacanadin, laakiin ittakhaduu way yeeleen qubuura ambiyaa'ihim, ambiyaalkoodii qubuurtoodiibay masaajida ka sameeyeen. yuxadiru wuu digayaa marka nebiga, wuxuu ummadda uga digayaa maa sanacuu wixii ay sameeyeen oo kale. markuu rasuulku lacanada saarayo ee uu leeyahay allah lacanado, wuxuu rabaa ummaddu inay sajri u noqoto, inay ka waantoobaan, in sidii ay sameeyeen oo kale inay sameeyaanna ay ka digtoonaadaan. yuxadiru maa sanacuu walowlaa daalika, arrintaa haddaysan jiri lahaynna ubrisa bannaanka la dhigi lahaa qabruhu, qabrigiisa. taa la nacahaya iyo arrintaa darteed, diidid la diidaya darteed yaa nebiga qabrigiisa meeshii uu ku dhintay iyo gurigii caaisha loogu aasay. taa haddaysan jiri lahayn bannaankaa la dhigi lahaa. hayra laakiin annahu khushiya, waxaa laga baqay an yutakhada masjidan, in masjid laga dhigo ama ay ka dhigtaan dadka akhrajaahu. taasaa la diidayay, taasaa kaliftay in meesha lagu duugo. caaisha waxay leedahay bannaankaa la dhigi lahaa, waa la muujin lahaa, laakiin dadka looga digayay xaaladdaa looga digayo waxaa la lahaa saa ha yeelina oo xaaladdaa iska
ilaaliya. intaa haddaysan jiri lahayn bay leedahay bannaankaa la dhigi lahaa. walowlaa dalika ubriza qabruhu waa rasuulka qabrigiisa hayra annahu khushiya an yutakhada masjidan, masaajid in laga sameeyo ama ay dadku ka dhigtaan cabsi laga cabsanaya darteed ayaa keentay in nebiga sala allahu calayh wasalam bannaanka la dhigi waayo. walimuslimin muslim waxaa u sugnaa can jundub ibni cabdillaahi, saxaabiga jundub ibni cabdillaahi la yidhaahda qaala inuu yidhi samictu nabiya, nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam qabla an yamuuta intuusan dhimanin b5 5 wahuwa yaquul asagoo dhahaya innii anigu abara'u waxaan uga beri noqonayaa ila allaahi ilaahay xaggiisa an yakuuna lii minkum khaliilun, in xaggiina uu waday iyo saaxiib ii ahaado, in waday iyo saaxiib aan yeesho ayaan ilaahay uga beri noqonayaa xaggiina. ilaahay xaggiisa wax beri uga ahay oo aanan dhacayn macnaha oo aanan samaynaynin an yakuuna lii inuu ii ahaado aniga minkum xaggiina khaliilun wadaay, qof saaxiib ah inaan samaysto inaysan dhacaynin. waayo fa ina allaha ilaahay qad ittakhadanii wuxuu iga samaystuu iga yeeshay khaliilan saaxiib iyo wadaay, kama ittakhada suu uga samaystay oo kale ibraahiima nebi ibraahim khaliilan, sida uu nebi ibraahimba wadaay uga dhigtay ayuu aniga ilaahay wadaay iiga dhigtay subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay, haddii mar aniga ilaahay khaliil iga dhigtay, qof idinka mid ah waxaan beri alla oga noqonayaa inaan khaliil ka samaysto. abuu hurayra markuu leeyahay awsaanii khaliili, wadaygay baa ii dardaarmay iyo saaxiibkay, waxaa lagu fasiraa oo la yidhaahdaa abuu hurayra asagaa nebiga saaxiib ka dhigtay meehee nebiga abaa hurayra saaxiib kama dhiganin, ee qofka asagu wuu ka dhigan karay, laakiin nebiga asagu qof kale ilaahay maahee saaxiib ma uusan ka samaysan jirin. walow kuntu haddiise aan ahaan lahaa buu yidhi nebiga mutakhidan mid samaysanaya oo ka yeelanaya min ummatii ummaddayda xaggeeda khaliilan waday hadday dhici lahayd mid saaxiiba inaan ka samaysto latakhadtu abaabakrin khaliilan, abaabakar baan saaxiib ka dhigan lahaa, abuubaraan waday ka dhigan lahaa. abuubakar baa mudan in saaxiib laga dhigto, laakiin khullada iyo walaaltinimada islaamka wax kasta ka sii horraysaye walow kuntu mutakhidan min ummatii, haddii ummaddayda xaggeeda aan ka samaysan lahaa khaliilan latakhadtu abaabakrin, abaabakar baan ka samaysan lahaa ka dhigan lahaa khaliilan. ahooyaay war hoy baraaruga, warsaan wax idinkugu sheega soo jeesta. wa inna man kaana qablakum, dadkii adinka idinka horeeyey, kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwa ka samaysta qubuura ambiyaa'ihim, nebiyadoodii ambiyadooda qubuurtoodiibay masaajida ka dhigan jireen. masaajid wuu noo fasiri doonaa waa meel lagu caabudo allah. xataa haddaan masjid laga dhisin oo qabriga agtiisa inta qofka uu la qasdo cibaado ahaan ee uu tago meesha ayuu masjid ka dhigtay, taasaa markaa loola jeedaa sida uu noo fasiri doonaba. alaa hooyay ummaddaydiiyey falaa tattakhiduu ha ka yeelaninoo ha ka samaysanina alqubuura qubuuraha masaajidii gooba alle lagu caabudo. fa innii anigu anhaakum waan idinka joojiyey waana idinka reebayaa can daalika arrintaa xaggeede. faqad nahaa waa uu reebay canhu xaggiisa nebiga fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeeda. shantaa ka hor ayuu nebigu diiday sala allahu calayhi wasalam, ama mar allaala marka mowtadiisii geeridiisu ay 5 markaa ka dhinnayd. aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii ayuu nebigu markaa diiday. humma intaa kadib innahu asagoo lacana wuu lacanaday, wahwa asagoo fi siyaaqi sakaraadkii ku sugan, asagoo siyaaqii geerida ku dhex jira, man facalahu qofkii sameeya.
qofkiisaa sameeye ayuu nebigu lacnaday. waasalaatu salaada oo cindahaa agteeda lagu tukado, min daalika arrintaana wain lam yubna xataa haddaan laga dhisin masjidun masjid. man facalahu qofkii sameeyuu lacnaday. iyo wasalaatun salaad qofkii ku sameeyey ku tukada cindaha qubuurta agteeda, min daalika arrintaa cindahaa agteeda, min daalika wain lam yubna masjidun masjid xataa ayaan laga dhisini. oo qofku ma aha inuu masaajid ka dul dhiso keliya asagoo qabriga sidiisii ah hadduu dhex galo hortiisa mariyo uu yidhaahdo waa ku tukanayaa meeshuusan masjid ka dhisnayn, xataa masaajid buu ka dhigay. saasaa markaa loola jeedaa. wa huwa macna taana macnaheeda qowliha waa qowlkeedii caaisho ay tiri khushiya an yutakhada masjidan, waxaa laga baqay in masjid laga dhigto. waayo fa ina asaxaabata saxaabadu lam yakuunuu ma aysan ahayn liyabnuu kuwa dhisa xawla qabrihi qabrigiisa gaararkiisa masjidan kuwa ka sameeyey maysan ahayn. wa kullu mawdicin mawdic iyo meel walboo qusidati salaatu salaada lagula qasdo lagula beegsado fiihi meesha gudaheeda faqad itukhida masjidan masjid baa laga sameeyey. masjid ayadoo laga dhigay bay la mid tahay. bal iska daaya kullu mawdicin mawdic walba meel walba yusallaa fiihi lagu tukada meesha dhexdeeda, waa meel walba oo lagu tukado ayaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa oo loogu magac daraa meesha lagu tukaday masjidan masjid baa la yidhaahdaa. kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam, sida uu rasuulkuba uu u yidhi jucilat liya alardu arlada waxaa la igaga dhigay masjidan iyo wa tahuuran. masjidan markuu rasuulku leeyahay ma aha masaajid la dhisaye waa meel lagu tukado ayaa layga dhigay. ummadayda meel kastay salaadu ku haleesha waa inay tukato, taasaa xadiidku ku jiray. wa tahuuran waxaa loola jeedaa meel lagu taaro qaataa dhulka layga dhigay ummadayda. saa darteed hadday biyo waayaan carrada korkeeday ku weyse qaadanayaan oo diinta ilaahay u fududeeyey loo sahlay. taa darteed waxay kalifaysaa qofku inuusan dhihin salaad baa iga tagtay, waysaan waaye ciidda ku ways qaado, masaajid baan waaye cooska dushiisa ku dulduko. xaaladahaasaa marka leeyahay qofka muslimka waa inuu xaaladaha ilaaliyo. wali axmedin axmed waxaa u sugnaa bisanadin jayidin sanad hagaagsan can ibni mascuudin marfuucan xadiid marfuuc ahoo nebiga loo kor qaaday sala allahu calayhi wasalam inuu rasuulku yidhi inna min shiraari nnaasi dadka ku ugu sharoolayaasha ah uguna sharta badan man cidda waaye tudrikuhum asaacatu saacadda qiyaamo ay soo haleesho wahum axyaa'un ayagoo nool. ma rabtaa nin khayr badan inaad noqoto saacadda qiyaamo ka hormar. waayo saacadda qiyaamo waxay ku duldhacaysaa ummadda kuwa ugu sharta badan. dee shaydaan baa intuu u yimaado isu soo siineeyo odhanaya aniga ay caabudo ilaahiinii baan ahay. munkar ma inkirayaan, macruuf ma yaqaanaan, way caabudayaan. saa darteed baa intii iimaan lahayd qalbigooda laa ilaaha ila allahi ku jirtay yaa ilaahay nafta ka qaadaya subxaana wa tacaala. markaasay geeriyoonayaan. waxaa isku soo harharaya ummadda kuwa ugu xunxun ee ugu sharta badan sida dameeraha ayagoo suuqa isku fuulfuulaya yay saacadda qiyaamo ku dhacaysaa. saa darteed buu rasuulku leeyahay inna min shiraari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan man tudrikuhum waa cidday soo haleesho ama ay soo gaarto asxaabtu saacadda qiyaamo wahum axyaa'un ayagoo nool. iyo waaladiina kuwa yatakhiduuna alqubuura masaajida qubuuraha masaajida ka sameeya. rawaahu abuu xaatimin wabnu xibbaanin fii saxiixihi. qof baad arkaysaa masjidka ka fog u socda, masjidkii agtiisa ahaa dhaafaya. waayo haddaad dhahdana kaashii qibil baa ku duugan, qabri baa ku dhex yaala. ictiqaad wuxuu qabaa qabriga lagu ag tukado inay salaadeedu mudaacif tahay, laalaad ay tahay. waciyaadu billaahi dadka noocaasaa ugu dhib badan uguna shar badan sida rasuulku tilmaamayo sala allahu calayhi wasalam. saa darteed
aad ha loo dadaalo. in allaala inta tawxiid lagu dadaali kara ha lagu dadaalo. waa raasimaal, waa waxa keliya ee maalinta qiyaamo qofku uu ku badbaadi karo, waa waxa laku halayn karo, waa waxa ilaahay mar allaala markii aad la kulanto ay suuragal noqon karto in ilaahay agtiisa aad janno iyo khayr iyo wanaag ka dheefsato. waanu soo marnay waxyaabaha wax kala waajibiya waa maxay. nebiga markii la weydiiyey, rasuulku wuxuu ku jawaabay qof kasta oo dhinta asagoon rabbi u shariig yeelinna jannada alluu galaa. qof kasta oo dhinta asagoo ilaahay u shariig yeelayna naartuu galaa. darteed bashkiga waxa uu yahay waxa raasimaan la'aanta ah ee qofku mar allaala ku dhintuu ilaahay ula hortago rajo uusan lahayn, cadaabka inuu ku waarana u ballanqaaday. qofku in allaala intuu ahlu tawxiid yahay, in allaala inta shirki afkiisa ka ilaaliyo, in allaala inta afkiisa ilaahayow maahane wax kale aysan ka soo bixaynin, waa intuu rajo leeyahay, waa intuu janno u dhow yahay. xataa macaasi uu galay waa irba ha noqoto, haddii uu ku dul dhinto rajuun buu leeyahay inuu rabbi ka wada cafiyaba subxaanahu wa tacaala. sida ilaahay tilmaamay uu yidhi, ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. taxta almashyaa inuu galo rabbina ka saamaxa subxaana wa tacaala, ooba naarba lagu dayin, waa ilaahay wuu kari karaa subxaana wa tacaala. waxaa kaloo meesha ka imaan kartaa in ilaahay inta uu cadaabo naarta la geliyo, kadib laga soo jaaziyo wixii xumaa ee kabaa'ira uu galayna inta laga nadiifiyo ilaahay dib dambe uga soo saaro. ahlu tawxiid maba ku waaraya xataa haddii uu cadaab ku galo, waayo ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta ayuu odhanayaa ka soo saaran qof kasta oo qalbigiisa mithqaala dar ama mithqaala xabba ama mithqaala bur oo iimaana qalbigiisa uu ku jiro. xabad bur ah qalbigiisoo iimaan ah, laa ilaaha ila allah xaqiiqa ah, dhab ah, aan shirki lagu darin, aan awliye lagu caabudin, aan qabri lagula tawaafin, oo laa ilaaha ila allah nadiif ahoo khaalis ah qofkayba qalbigiisa ku jirto. ka soo bixiya cadaabkay tegayaan, way ka soo bixinayaan, waxay ku garanayaan aahaarta sujuudda, waayo qofka tukada meelaha uu ka sujuuda naarta ma cuni karto. si kastoo qofka bini aadamka naarta loo geliyo, amaakinta 7 ah ee uu ka sujuudo awood uma laha naar inay cunto. ibni aadam dhammaantii buu dhahay nebiga, naartu way cunaysaa hadduu galo ilaa aahaarta sujuudda maahane, ayagoo dhuxuloobay, qad imtaxushuu, dhuxuloobay, gubtay ayaa laga soo bixin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam, waciyaadu billaah. kadib baa lagu shubayaa biyo lagu magacaabo macu xayaa, dib bay u dhalanayaan sida dhirta quruxda badan, saylka iyo daadka geerarkiisa ay uga dhashaan. kad baa ilaahay jannada geeya subxaana wa tacaala. ahlu tawxiid aan noqono, shirkiga aan iska ilaalino, waxyaabo aanan shirki u malaynayn oo shirki baanu ku dhex socona. waxyaabo fara badan bay ummaddu isticmaalaan. shirkigu waa kaaga soo dhuumasho badan yahay, dhagax sibsib ah, habeen mugdi ah oo mtaqaanaa gudcur madowa uu jiro, qoreesho ku socota see loo arkayaa? waa ma jirto. waxaa dhici karta anagoon u malaynin inaan shirki ku jirno haddana shirki galno. an taxbada acmaalakum wa antum laa tashcuruun. waa suuragal aad shirkiga aan u barano. waxyaabo fara badan baa jirto ummaddu ay ku hadaaqaan, kuna dhawaaqaan, kuna hadlaan. shirkiyaadna gaarsiiya. qofkii ilaah u shariig yeela faqad xabita camaluhu, camalkiisa alla wuu burinaya. walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun. nebiyadii baa lagu yidhi hadday shariig yeeli lahaayeen camalkay qabtaan baan tirtiri lahayn buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. walaqad uuxi ilayka waila aladiina min qablika, waan kuu waxyoonay adiga iyo nebiyaalkii kaa horeeyey nebi moxamedow, lain ashrakta layaxbatanna camaluka, haddaad shariig yeeli lahayd camalkaagoo dhan baanu tirtiri lahayn, walatakuunanna min alkhaasiriin, khaasiriintu waad ka mid noqon lahayd. saa darteed shirkiga aan iska ilaalino, rabbina ha naga ilaaliyo, ha naga xafido. baabu maa jaa'a ayaanu geli doonaa, laakiin meesha inoo joogto. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala
أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين،